waxa lagu farxana weeye runtii masjidkan qiimaha badan caasimadaha qaarkood baan ka dhisnay waxay sheegaysaa tacab weyn iyo dadaal iyo iskaashi ummadeed farifool ma dhaqda baa leh haddii ummaddu aanay iska kaashanin tacabkan oo kale muu hirgaleen marka wax lagu farxo weeye waxaa kaloo wax lagu farxaa sidaa usoo camirteen walaa qaar baa idin haysta lacagtun ina camirtaane oo isla dukaamadun bay ka hilaaceen ay ku jiraane masjidkana si qiimo badan baa usoo camirteen allah inagu anfaca waxaynu isu sheegayno hayna barakeeya culimo waaweyn baa runtii wax idiin sheegay aqoonna idiin faa'iideeyo iga aqoon badan wixii ay ka hadleen allah inagu anfaco anigu kelmad yaroo kooban ayaan daqiiqadaha su-aalaha ka horeeya insha allahu wax yar ka odhan doonaa waa kelmada waa arrinta sakada الزكاة الترغيب فيها والترهيب في منعها من منعها iyadoo aynu markaa soo qaadan doono daliilo kooban oo ku saabsan sakada iyo sidoo islaamku inoo jeclaysiiyay iyo sida looga digay sakada inuu qofku haysto mawduuca waxaan u doortay mararka qaarkood waxaan maqlaa hebel farta lagu fiiqayo oo ganacsatada ka mid ayay badnaaninba oo la leeyahay hebel sakada ma bixiyo lagu xamanayo ama si wanaagsan uma bixiyo waana arrin aad iyo aad u khatar badan in qofka xoolihii ilaahay uu siiyey uu sakada ka safayn waayo waa nasiib darro weyn markaynu doonayno maalku inuu inoo barakoobo dhammaanteen waynu doonaynaa laba arrimood baa muhiim ah ta hore in lagu dadaalo wixii waajiba xoolaha in laga guto ilaahay uu ku waajibiyey ilaahay ku siiyey wixii uu ku faray in laga fuliyo xoolaha taasi waa midda labaadna waxa weeye wixii xaraam ah in laga ilaaliyo xoolaha aad dhaqayso marka in sakadii qofku uu ku safaado ama bixin waayo waa baraka la-aan inuu xaaraantii xoolihii sidaa ka xasilina waa xumaan kale oo ribe iyo wixii la mid ah uu ku tallaabsado casrigan aynu joognana waxa ribada la yidhaahdana siyaabo badan bay bulshada usoo gashaa marka maadaama aad tihiin waddanka meelihii ugu dhaqaalo roonaa wax dhaqdhaqaajinayay labada arrimood aada ugu dadaala si qalbigaagu u dego oo aada ugu kalsoonaato waxaad shaqaysanaysa xalaalnimadiisa maalinta lagaa dhaxlana waxaad ka murugooto aanu u noqonin waxaynu u gudbi lahayn markaa xoolaha ay sakadu ka waajibto waa arrimaha asaasiga ah nebigu markii uu dirayay mucaad ibnu jabal waxyaabihii uu farayay bay ahayd salaadii iyo sakaday marka muxaadaraadkeenna mar walba waa inay ka mid yihiin usuusha diinta in aada laysu xusuusiyo waayo dadku kama dheragsanaa dadka intooda badan cawaamu nnaas wax badan oo masaa'ilkaa aanay ka warhayn baa jira inkastoo culimadii ay idiin joogaana duruustii idin akhriyayaan xoolaha ay sakadu ka waajibaysaa waa 5 xoolaha nool aynu haysanay geel iyo adhig iyo looda ganacsigoo allah inoo barakeeya aynu gacan ku hayno midhaha beeraha inooga soo baxaya dahabka iyo lacagta iyo waxa la odhan jiray rikaas imika maba haynee xoolo berigii hore gaaladii iyo dhulkay ka guuraan laga heli jiray marka afartiiba idinka ag dhow yihiin dahabkii iyo lacagtii ganacsigii xoolihii noola beerihii gobolku intaba uu leeyahay idan waxa muhiim ah in sakadii aynu safayno si fiican aynu soo baxdo tarqiibkeeda quraan iyo xadiis ba aad bal laynoogu dhiiriyay inaynu sakada safayno oo qofku wixii saka lagu leeyahay halkaa uu iska dhigo shuraaka lagu leeyahay ilaahay adiga ku siiyay intan ayaa wuxuu ku yiri inta yarna dad baa kula leh adigu ma balhidba
sidaa daraaddeed haddii aad intii bixin weyda waxaad ka dhigan tahay qof ciddii xoolaha la lahaydee shuraakada ahayd diidoo dafiray. ilaahay baa wuxu uhi subxaanahu wa tacaala khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum. dadka xoolahooda ka qaad seko maxay faa'iido leedahay? waad ku nadiifinaysaa, waanaad ku barakaynaysaa, salligaaga iyo ducadaadana waa ay ku helayaan. maxaad u malaynaysaa saddexda arrimood? inuu ilaahay adigiyo xooliba nadiifiyo, barakeeyo, salligii nebi maxamedna aad ku hesho sala allahu calayhi wasalam. salliga nebiga waa wax qaaliya, inaga ku salliya baa layihi rasuulka, inuu isagu kugu salliyana waa kaasi weynta. waana ku salliyay ciddii sakada u keentay nebigu calayhi salaatu wasalaam. sidaynu ogsoonnahay waa arkaanu islaamkay ka mid, oo qofka sakada diidaa tiirarkii islaamka mid ka mida buu gooyey. waa ukhtu salaa, salaaday soo raacdaa. waana sifooyinka ay leeyihiin dadka ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala ee ilaahay qur-aanka uu ku ammaanay. ina almuttaqiina fii jannaatin wacuyuun aakhidiina maa aataahum rabbuhum inahum kaanuu qabla dalika muxsiniin kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wabilasxaari hum yastakfiruun wafii amwaalihim xaqun lisaa'ili waalmaxruum. waa dad jannada galo alla ka cabsi lahaa. astaamahoodii waxaa ka mid ah inay sikada bixin jireen iyo xoolaha ilaahay uu siiyeyba waxba ka bixin jireene may ahayn deeqduu ilaahay siiye dad ku bakhayla. mar kale ragga iyo dumarkaba dadka ilaahay rumeeyey waxyaabuu ilaahay ku sifeeyey ay tolka iyo xigtada ku yihiin ay isku kaashanayaan. waxaa ka mid ah sakada iyo salaada inay wada oogayaan oo isku garab taagan yihiin. waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd yaamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar wayuqiimuuna asalaata wayuutuuna azakaah wayudiicuuna allaha warasuulah ulaa'ika sayarxamuhum allah. waa astaamaha awliyada ilaahay waxaa ka mid ah inay wanaagga faraan, ay xumaanta diidaan, ay salaada oogaan, ay sakadana bixiyaan. wax kala hadhaya maaha. waa min gaayati tamkiini lmu'miniina fi lard. dadka ilaahay uu raalliga uga yahay inay dhulka madax ka noqdaan waxyaabuhu ku calaamadiyey caanka ku yihiin waxaa ka mid a in sakada bixiyaan. aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaa wa aatow zakaa wa amaruu bilmacruufi wanahaw cani lmunkar walilaahi caaqibatu lumuur. watamkiinu ridaa, awoodsiintu ilaahay raalliga ka yahay waxa weeye dadka markay madax ka noqdaan dalka deeqdiisa iyo awooddiisa ay gacanta ku dhigaan, salaaday oogaan, sakaday bixiyaan, wanaagay faraan, xumaantay diidaan. waa astaamaha la doonaya inaynu ku dhaqanno. waxaa qur-aanku inoo caddaynayaa sadaqada iyo deeqbixintu in ilaahay subxaana wa tacaala dadkiiyo dunyada uu ku barakeeyo. ribada waxa la yidhaahdana qofku wixii uu hayaba inuu ilaahay barakada kaga qaado. yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat. sadaqada ilaahay baa addoomaha u barbaarinaya. sakadu ay kow ka tilo waa sadaqo waajiba. baasha ribada la yidhaahdana ilaahay baa baraka tira meesha lagu hayo iyo xoolahay gasho. waa laba arrimood oo isbarbar socda. taasina waa waajibkii u weynaa ee laga bixinaya xoolaha, tanna waa xaaraantii u weyneyd ee laga fogaanaya. ilaahay baa subxaana wa tacaala run sheegay. arrintaa qur-aanku uu ka warramay waynu ku aragnay caalamka. beri dhowata adduunyaduba waxa ka dhacday waxa la yidhaahdo faqri baa ka dhacay, ama hay-ado badan iyo baanan badan baa kacay. waxaynu aragnay tafsiirka aayadda yamxaqu llahu riba. ilaahay ribada wuu baabi'iyaa maalkay gasho. markaasaa baanankii islaamiga ahaa ama nidaamka islaamigaa ku shaqaynaya way ka soo hadheen. laakiin kuwii ribowiga ahaa iyo dadkii wax ka qaatay intaba kaba kulul baa loo geliyey oo way kadeedmeen. haddii sidaa loo dhiirigeliyey oo islaamku uu inoo jeclaysiiyey inaynu waajibkaa ku xaragoonno oo xoolaheenna ka bixinno, waxaa aada laynooga diga inaynu ku adayno oo aynu ku bakhaylo. in baaberi laga warramayo xoolihiisiibuu xisaabi, aad bay u fara badatay sakadii. markaasuu ihi masakaa tidhi sakad baabay dhisaysaaba. intanaad sakada igu sheegteen iyadaaba saka dhisaysa. sakadiibuu ku dhisayba sakadii mabuu bixinba. sakatu sawaad baa loo bixiyey, sakada madoobaatay.
وحا قرآن كريم إلهي ونقو عده سبحانه وتعالى عقوبة إيا عيبت إلهي ضدك السكرة كو أضيقا بحين وايا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ضدك كيتسنة يبا إلهي ذهب كي العقد يعني كبحينين واجب كي لقولها أما جهاد كها هذا أما هذا مصاريف دي واجب كهاي أما سكدي waxaad ugu bushaaraysaa cadaab kulul lacagtii dahab kiiba waxa laga soo dhigayaa safeexada balbalaaran oo la mid ah midanahan weyn xoolaha lagu sunto kale markaas jirkiisa dhinac walba lagaga dhajinaya iyadoo la leeyahay lacagtii dahabkii iyo xoolaha kaydsanaysa waa kan dhadhami baa Ilaahay u leeyahay marka waxa isugu darmay ceeb iyo cayr iyo cadaab ayaa Ilaahay isugu daray subhanahu wa ta'ala marka qofkii kolka uu kansiga sameeynaya waa markuu xaraan ururinayo waajibkiina uu ka bixin waayo marka la Ilaahay wuxuu wala yaxsabanna alladheena yabqaluna bima aataahum Allah min fadli huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayatawquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah dadka ku adeegaya xooluhu Ilaahay si bakhiil xakawka qofka waajibka aan ka bixinin xoolaha ee sakadii ku bakhayray waxa uu haystay inuu wanaagsan yahay uu moodi balaayo iyo sharbu u yahay maalinta qiyaamahana qoorta loogu duubi nabi maxamed ba xadiid saxiixa ku fasiray sallallahu alayhi wasallam aayada waxaanu tilmaamay xadiidkii saxiixaynka ku sugnaa min xadiid abi hurayra qofku Ilaahay xoolo siiyo sakada ka bixin waay maalinta qiyaamaha Ilaahay wuxuu ugu soo eegaysiinayaa bahal masahoweyn oo miciyo dhaadheer leh qoortu iskaga duubaya labada biyo buufle hareeraha cunaha ayuu ka gelinayaa والله هذا وليبا وحلا أنا كنسك أنا مالو أنا وحنا حولها كيدينيس هذا كم كي قصدت كويل علينيس حكي سوي ما أنت إن بدن بعد حكي سوي أنا قلنا كل الكيجي كذا كيجي حكي سوي هذا قف كدينا سكله إسلامكم مدينين الله تيجي يسكب حبال عرنا يهدو دينه عقوبة مالية يمد جسدي يلا بدو يسوي كذا تركيا مالك ولا عقارية وحاول أوكسونته إنه أبو بكر الصديق لدى قال ما الله كرال النور مانع الزكاة هو سكذا ديدي قال بالله قال من ديدو قالوا بي هي من الإسلام شيكتا يضعون قاضي والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولا توحد والله إن أنا كدينا إن الله قال ما يو صلاة هي سكذا لها القرآن كأنت أصلا مراد سكحري يقفك كلا صاري وأنتو كان يسكن بحين ماي سعون ما يسوي سيدا دراديد با إلى تبت لغو ريدي أو إسلام كي أركان تيسي لو قليسي لغابر ديگين هوك بركا قفكاسي waxay sheegaysaa deelala dagaalama iyo waxa lagu la dagaalamay wax sahlan ma intaas waxa weeyaan sakada iyo sidoo islaamku u dhigri galiyay sida looga digay shayga la yiraahdo sakada in lagu adeego waxay ogsoonahay waqtiyadii hore sakadu saaciibay lahayd oo la soo ururin jiray daa Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka oo ku xusay wal aamiliina calayha dadka soo ururinaya waxa la tirakoobi jiray fuqarada waxa la tirakoobi jiray maal qabeenka wala isu qaybinaya markaa dhiisha faqriga waa la tuuraya Umar ibn Abd al-Aziz madaxweyne caadilka muslimiinta waxa uu wuxuu xukumayay umada 2 sano iyo xoogaa 3 sano ma gaarin ayaama sanadaha ama bilaha kooban oo madaxda ka ahaa fuqaradiiba waa la waayay qani aqniyadii maal qabeenku baa la tirakoobay sikadoodii waa la yaqaana fuqaradiina waa la tirakoobay ولا يسوق قيبي مربى قبل باسي درجية مربى متكلا سي درجية إلى يرادان فقراء زاد درادر هدي لون الريال على أساس كذا وما القبائل كيسوي مادان وحلاقي على هالكينا فقراء وكذا ما تهدنا قبل هذا كلا الله راح هدنا قبل هذا كلا الله سيكون بيه قضبة يربان تابلنا هدول عربي لها إذا كل فقه علماء عدين آخرين وقف إذا سن دورتان إن شاء الله وبراروجينه زكاة الديون قضبلا وحكوا كأس كذا ديمها
dad badan baa laga yaabaa deynta ka maqan inaanay sakaynba deynta iyada ah ee kaa maqan mar hadday tahay mid soo xaroon karaysa xisaabtaada waad ku dari oo way ku tirsantay hebel waad ka soo qaadan karaysaa deyntii kaaga maqnayd dadkeennuna deyntu way iskaga badanta sakadaad ku dari doontaa maalka aada sakaynayso waxaa ka mid a meherkii baa ka mid ah xaasku hadday ninkeeda ku leedahay meherkii maalqabeen uu yahay uu iska ladan yahay dee way ka bixinaysaa sakadii waa lagu leeyahay iyadunba amaahay soo udaysa qofkii faqiirka ahaa ee aada ku lahayd sakada deynta aada ku lahayd ma u siin kartaa sakadii haddii aanad shardi uga dhigaynin haabay leeyihin culimadu sakadaadii waad u dhiibaysaa qofkii aad deynta ku lahayd ee faqiirka ahaa waxaad leedahay wataa sakadaydii qaado isagaa go-aan kale inuu kuu siiyo deyntii aada ku lahayd iyo inuu ku qaxwayo iska qaato laakiin ha odhanin dee waan kuu dhiibayaae dee iska soo celi way dhici kartaa shardigaasaanad ku xidhayn wax qodobka saddexaadan xusi lahaa waxa weeyaan waa masaa'il su-aaluhu ka yimaadaan inta badan qofku qasdad yar buu iska samaystaa ama account waxbuu ku ururiyaa wuxuu la diyaar yahay inuu mashruuc ku fuliyo ama sharkad sheer kaga galo ama dhisma ku sameeyo ama uu ku guursado dhalinyarada ha u badnaato ama uu ka xajo xoolaha account buu ku ururiyo sanad iyo lababa way gaadheen sakadii way ku waajibaysa intaanu mashruuca gaadhina xoolahani kaydka ay halkaa yaallaan sakagalna yihiin way ku waajibaysaa masalada afraad waxa weeye qofkii maalan intaanu sakadii bixininba xoolihii way dhaafeen waanu bixin karayay oo uu iska sugay ilaa inta ay xooluhu dhaafayeen iyadoo sakadii ku waajibto sanadkii soo wareegay wuu qallaynayaa waa lagu leeyahay qodobka shanaad waxa weeye dahabka ay dumarku haystaan haddii aanu dee dahab kaydahoo meel la dhiganayo oo dhowrsada ahayna intaa hal mar ay xidhanaysa uu yahay waxay culimada islaamku u badan inaan saka lagu lahayn hadday ka bixisana way iska fiican tahay qodobka lixaad waxa weeye zakaatu rawaatib dadka qaarkood baa mushaharka ay qaataan lagaba yaabaa inuu $4,000 $5,000 $10,000 dadka qaarkood yahay saka ma ka bixinayaa culimada qaarkood haabay yidhaahdaanoo wuxuu la mid yahay midhihii beeraha laga goosanayay laakiin sida raajixa waxa weeyaan wixii uu dhigaa sanad u soo wareega mooyaane bil walba sadaqa sunnaa inuu ka bixiyo mooya waxba kuma waajibin qodobka toddobaad xoolaha nool markaynu sakaynayno waxa ay leeyihiin shuruudo ay ku sakoobayaan oo ay tahay in la ogaado shuruudaha waxaa ka mid a milkitaama inaad u leedo xoolihii aada iska leedood gacanta ku hayso sanad inuu u soo wareego xoolahan inay foofayaan oo hadda waxa iska badanba xoolo la canfiyo oo cunnada gacanta laga siiyo marka waa inaanay macluuf ahayn mid gacanta wax laga siinaye ay tahay mid foofta sanadka inta badan hadday 8 bilood ama 7 bilood xoolihii foofayaan saka waa lagu leeyahay haddii 8 bilood iyo wixii ka badan ama sanadka intiisii badnaa gacmaha wax laga siinayo saka kuma waajibin qodobka 8aad sakadu ma la siyaadin karaa in baa ilaahay nagu waajibiyey wax ma lagu dari karaa haa waa lagu dari karaa sida uu tilmaamaya xadiidka xasanka ee nebiga ka sugan inkii sakadu ay ku waajibtay markii uu soo siyaadiyey nebigu wuxuu uhi daaka aladii calayk wain tadawacta bikhayrin qabilnaahu mink waajaraka allahu fiih waxaa kugu waajiba waxaanu kuu sheegnay buu ahaa haddii laakiin aad kordhisay allaha kaa abaalmariyo annaguna waanu kaa aqbali marka haddii sabeen lagugu yeeshay 2 jira oo mid sarar weyn ama riman ama irmaan aad bixiso waa ducada nabiga helaysa sallallahu alayhi wasallam ama midhihii beerahaba aad sii wafayso sii wanaajiso sakadu iyo quudka ama waxyaabahan aynu beeranayno kale gobolkana wax badan baa laga beeraa waxay ku waajibaysaa wixii kayd ah beerahan la yidhaahdo beer biyoodka iyo qudrad iyo cagaar fara badan oo hadda lacag badaniba ay ka soo baxdo iyagu saka ma laha laakiin haruurka arabakhida digirta heeda waxyaabaha kaydka galaya ayaa lagu yeelanayaa sakadii waajibka ahayd laakiin midhahan beeraha kale ee iyagu khudradda ah
وحلقة بحياوة سنة وآتوا حقه يوم حصاده مالك قوستان حقي سبحية با إلهي سبحانه وتعالى قدمك طبناد ملا بحين كرا قيمها هديت حولي النولا هديت مريد بيرا هديت دهبكي زكاة لا يرادو زكاة التجارة أما قناعسك أيها هنتدي القيمين قيمه هذا لقى بحنايا لكن حوله النولا مريه بيرا وحاصورا وحلقة بحنايا عين تلفتجير راشكي بعد بحنايسا حوله النولا ناف كي دغرتي بعد بحنايسا حينو حسوسينينا reer miyiga qaar kood ba ku oranaya anu waan qiimeeyaan qaalinta la igu leeyahay lacagta masaakiintu baan u qaybiyaa ka war waa qalan lacagtaadaas waxay noqonaysaa sadaqa sunna ah laakiin wali sakadii waa lagu leeyahay arinta koob iyo tobnaad miyay bannaan tahay sakadii in la dadajiyo la cajilo haway bannaan tahay waliba casrigan ama waqtigan oo duruuf badan iska jirto oo meelaha jira aan lagu bixin karin sakada faralka ah oo kaaga baahan sadaqa sunna qaadamada qaarkood inaad ku bixiso ama dadka ikraamaysa sakada ehel u ahayn marka labada buug baad yeelanaysaa midna waxaad ku qoraysaa sadaqadii sunnaha ay midna waxaad ku qoraysaa sakadii markuu sanadku dhamaadaad isu geey wixii kugu haray baad bixin doontaa si looga faa'iideeyo dadka dhiban ee degdegsan sakadii miskiinka ama masaakiinta intee leeg baa la siin karaa waa loo badin karaa qaarkood baa la siin karaa wax sanad ku filan iyo wax uu ku shaqaysan karo haddii sakada aad bixinaysa ay xoogaa tahay nabiguba sallallahu calayhi wasallam waxa uu kaydin jiray reerkiisa quuta sanad in ay cunaan ayuu kayd uga dhigi jiray ugu dambayntii maadaama ganacsato aad tihiin waxaan filayaa in aad uga dheragsantihiin habka loo sakeeyo ganacsiga dariiqooyinka aad maraysaa waxa weeye inaad lacagtaada xisaabiso alaabta badeecada ah ku taalana aad qiimayso adigoo ku qiimeynaya qiimaha ay ka maraysa halkan ee qiimihii aad China iyo Dubai ka soo siisatay aan ku qiimeynaynin waxaad ku daraysaa deynta dhow ee aad soo qaadan karteen la dafirsanayn markaad inta ay sugayso ayaa waxaad ka jaraysaa deyntii adiga lagu lahaa waxa soo hara ayaad u qaybinaysaa 40 meelood waa 1/40 40 loo qaybiyo formuladaas ugu sahlan totalkii ku soo haray ayaad leedahay loo qaybiyay 40 meesha soo baxdaa sakaa sidii arigaba looga bixinayay 40 ka neef mid halkana mid baad ka bixinaysa boqolkiiba 2 badhna waa la oran karaa marka taana ina kulli culimada ka sii bogataan habka loo safeeyo loo sakeeyo tijaarada iyadana waan dul maray waan baraarujin lahaa tobanayada qodob waxaan isleeyahay waxa ku soo yaran noqoda su'aalaha sida daraadeed ayaan u qadimay waqtiga inta kala su'aalaha inuu ka faa'iideysan aadna waa mahadsantiin dhageysiga fiican aniga idinka bana Allah inagu anfaco wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وآدي أنتم مرتين جزاه الله خيرا فلا رجوع عسل وآدي أنتم وضغن أي الشيخ الوجدي أهلا وسهلا بسم الله إلهي سبحانه وتعالى الله كامل بريو طريقك قيمة عليه أو لقاء هذا حقيقة فرد كبيرة فرد إسلامك مرحبا كبيرة أركان إسلامك وسكلها وإن شاء الله وحديك رب حياة شيخ عليا هي حقيقة قانا قرب شيء وحلو وديو سؤال لو فهمسيو لو اللي باعانا نحن نقفل الناس على المرض إلى هذا إنك الشباب إلى هذا طبعا اللي باشا قاعد يجي سؤاليس طب مرة قاعد فهمسيو وبيموت شيخ سؤال يصير لو فهميو وجواب غير كبير وي والمشارة وكل بحضورنا شيخ أيوب يعني ناصر سؤال له عديان سؤالي واتمان تصوري سؤال عن ديار كلا حاجة وجودنا لأنه كم بيحكي معطان قد قرنا نطلع العمل سؤاله مركا سؤال سنة ودين دونا مرة بعد سؤال بالكينا في سؤال بالشيء حمل يا مرة لو ما حد نقل لمن هذا مهم وكل مسالك عنه كويس مرة ما نقلنا كل مسالك عنه كويس اسمها وضع لروح الله جزاكم الله خير يا ما ستين حل كان الله يوفق اليوم حل كان هو حلال كنت ناجي طيب أنا وحلا قوانين مسالك المسجد المالي ولا كنت داسين آدي الوضع كان عصر الله يكون الجيران حق بدنا كان كفريان إلهي سبحانه وتعالى الله يوفق اليوم شعب الناس يسولون بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سلام يوم وعلم في عام يسأل من كل رئيس
يا شيخ